السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أبو ما سنتين سيد مارك شرف الله ومرتقاتين إن ماتي ما بقلتها إلى محك بريها إن ماركتي وكلهم كنا كنا وماركتي إلى أبي أبو بكر وحن ننفلها إلهي كل جيل مجرد قفك إلهي جعلها وهو دونك سمع كما الله آخرين سمع كما الله. أنا يوم مقعي وحليل هذا أحمد عبد الله العلمي أحمد تريد أيوة يقرأ لكن وحنا ربعنا أنا أوكر لحسن كورة يقدم بيش دورته نوع شقيق مركا أو قصص وحنا حسوسته أنا يقدر يربطن أميرلاند لكن أيا سنة كبكوها لوقتني أفر 2014 ayaan waagii waxay ahayd intaa xasuustiin qaxootiga Soomaalida maaragtay oo 91kii markay dadka soo qaxeen waxay imaadeen Kenya ama Ethiopia iyo meelahaas ay imaadeen markay imaadeen ilaa iyo 8 sano ilaa 10 sano meesha ay joogeen intaa xasuustiin Soomaa marka 10 sano ku dar 2001kii 2000kii ay dadka imaadeen America ديت سكي لا كمان سنة كبارك بس كبدن كونا كودا أي إيمانين مركو وحيالها أو أن أركيجرني كوميونيتي قد وحي إيه قفك وعينا نجى صومالي دنا مساجدين وحيرنا الحمد لله صوما مركا قفك مسلم كان مركو وكوميونيتي أم ضد كيس ولادنا هتوصل قفنا أقولين مالها كو أتجلس ومساجدين صوما مساجدين أتجلس مساجد كتجلس وعاونات أيات في الكوعاويو هذيك اليوم مساجد وحكي لي زاد صومالي أحكي لي سا ما هو أتكت أدونك ما هو أتكت صومالي مساجد كتجلس ما الحمد لله ضد المسلمين الآن مركا وحال علي إن لبعضه وما أعرف صومالي سو قلتي إن لبعضه أسمع ضد كي سو كوفيتي ضد سو قالتي مركا markay dhibaatadaas kor dadkii ay yimaadaan oo dadkii u baahan yihiin maaragtay meel degaan ama ay u baahan yihiin dad maaragtay dadkooda ay u tagaan oo caawinaad ku weydiistaan ama kala tuso magaalada ama kala tuso waxyaalaha kaleeto oo u baahan yihiin ama luqadda ingiriiska oo maaragtay tarjumaan loogu noqonayo waxaas markay u baahan yihiin waa in maaragtay dadka Soomaalida inaga inaan volunteer aan noqono oo maaragtay u tagno أنا ما أتوقف أو سامكو سمين كرو شقدي فسح كسوقاتي أو سامكو سمين وأنت صبح أنت بدينها أنت جي أنت كسوقاتي ما يسكرك لو قرأي كعاوي وحاسة عندك شعبي يسمينه أنا جو فيو هذيك لو يشان إذا يتوانا أنا جو أسمين جدا مركز أول حاجة قرني إن ما عرفتي جودي أنسى بسمه أنا ميرلان وقوي رأي ميرلان تلسكوب ده كل جود وما ملاينا بورسانين يبرحيان مركز دد بدل ما دد ويريا إلا يوحد دكان أديك maybe إلا يتطلعات مسجد الفاميلي دكان ميرلا أنا يتعرقان واسكو إيماني أنا جو بدل وحنشر ستارو كله تاسوي إيماني زمالة library كاسوي إيماني مركز هو رئيسي وحلا سوي ويل أو مجال دكان كل كسر سوي إن laga hadlo sidee wax wada qabsanaa markii oo la shiray taariikhda meel u socdaa bal iga warso markii waa guriga koowaad la tagay wiilkii uu soo dhaweeyay cashuur kariyay reerkiisa kariyay meeshii ilaa 12 عام oo qaaday in waagaas markaas rag dowladda ah xamaashay markaas markii uu dhamaaday ayaa waxaa la yiri halkee ku goormeen kulnaa oo labaad halkees ku kulnaa markaas mid kamid ah wuxuu yiri qof gacanta taagan la baayay mid wuxuu yiri aniga gurigeyga bil kadib meeshaas aan ku kulmeen aniga in soo dhaweynahay inta bish ku dhaxaysay ayaa waxaa ay noqotay arrinta in laga dhigo qabiil suuqa waxaa galay in reerkaas because dadkii meesha joogay wiil bana martaqaaday marka koowaad ogtahay intee la aaday meesha qabiilo badan lagu fadhiyo qof gacanta taagto ayaa la waayay wiilka oo guriga sameeyay walaalkiis
ayaa yidhi aniga ayaa sameyn fiiriya markuu sameeya waxaa la yidhi reerkaas ayaa raba inay guddi ay samaystaan aqansama marka shirkii labaad markuu dhacay reerka gurigood ku dhacay wiilkii martiqaaday wiilkii kowkii walaalkiis ayaa lagu dhigay markaas ayaa waxaa go-aan lagu gaaray in mar dambe aan guri qof leeyahay aan lagu dhigo oo meelaha maaragtay iskoolaadka iyo meelaha maaragtay oo library iyo meelahaas in lagu dhigo oo mar dambe aan lagu dhigo marka waxaan sameynay wuxuu ahaa qof walboo yimid idinkana haddii aad sameynaysiin haddaad samaysayna sameeya haddaad samaysayna waa fiican haddaad sameyna sameeya oo ah qof walboo yimid magaciisa iyo telefoonkiisa iyo ayaa laga qoray hadduu rabo waayo mafahamta qofkaan rabin ma rabo sooma ma dhibi karo dadka sababta waxa waaye aaminaanaan jirin sooma marka qofku ma yaqaano samaynaysa laakiin adiga alxaasil meelaan isku imaan jirnay library isku imaanaynay marka waxaan qori jirnay wixii laga hadlay iyo wixii go-aan lagu gaaray ayaa la qori jiray marka waagaas ragga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen annaga waxaan rabnaa inaan noqono dad oo politicalka iyo sharciga dowladda maraykanka iyo dadka la doortay iyo maaragtay aan lacag u aruurinayna aan dabagelayna dadna waxay yidhahdeen war annaga taas hadda maan ogaani karnee meel annaga dadkeena aan isugu imaan karno oo ilmahayna aan luqadda ku bari karno oo qiib oo dhibaataysan loo gargaari karo aan sameyna sidii la isku qeybiyey sooma marka la isku qeybiyey ayaa go-aan dadkii waxay gareen hadee dadkii waa wada yaryahay oo dadkiina waa is yaqaaneen sooma in la is caawiyo in wax macnaha adiga xagga maanta waxaad ku jirtaa qaybtaas hadda qaybtaas baa ku jirtaa laakiin waad isku imaantaa oo isla qabataan oo wax waad isla wadaan sooma marka dadkii oo ilaa iyo waxaan kulanay 7 mar ayaan kulanay dadka yimid warqadihii la qoray oo macnaha wixii oo maaragtay oo hadalkii laga qoray meesha kulli waxay ku wada jiraan Google ay ku wada jiraan Google Doc ay ku jiraan qofkii rabo waa tegi karaa meesha ka fiiri karaa mafahamtay oo macnaha oo bilaabi kartaa maalintii koowaad la yimid ilaa iyo meesha la gaaray waad akhri kartaa qofkii joogay go-aankii la gaaray arrinta meel ay noqoto waa samayn kartaa marka taas ayaan sameynay go-aanna markaas waxaan ku gaarnay dadkii guddiga community-ga rabay inay wax qabtaan shacabka wax qabtaan gees ay u baxeen aniga iyo 2 kale iyo 3 kale waxaan noola kala saaray in maaragtay aan fiiriyo sharciga maaragtay oo maraykanka oo goolka in maaragtay guddiga inaad furitid oo maaragtay oo non-profit inaad furitid sharcigaan akrinay hadda dad wax oo kolay ka soo baxaanahay waa waxaan fahmi karnaa mogta uma baahnid dad wax akrin kartid waa uma baahnid marka annagaa qoranay wixii annagaa qoranay non-profit-kan sameynay adiga December 2004 waxaan haysanay sharciga maraykanka inaan non-profit 501c3 nahay raggii kaleeto oo political sameynayay inaad taqaaniin in kalama naqaanin laakiin waxaa ku jiray dhalinyaro oo markaas uu ka mid yahay guuleed qaasim inaad maqashani kalama aqaan guuleed qaasim ayaa ku jiray waxaa ku jira muumin la yidhaahdo guuleedna waa dad socotaan waa inuu 2 mar u orday kursi meerna mabanta u orday muuminana waxa waaye Montgomery county-ga Montgomery ka mid ah Maryland ayuu wuxuu ka gaaray inuu noqdo the head of maxaa Democratic Party marka anagii marka saas ayaa guddiga lagu dhisay oo markaan sharciga guddiga dhisaynay oo aan IRS warqadaha u jeedinay hal arrin ayaan ku darnay meesha oo ah Soomaaliya arrinteeda ma gelino anaga bagaas waa laisku haysta mogta si fiican laisku haysta ma gelino oo macnaha hadda Soomaalidu qodqodaysaa mogta waxay leeyihin wasiira imaaday soo dhaweynaysiin guddoomiyaha imaaday soo dhaweynaysiin kulligood waxaa nana abadan qofka shaksiga hadduu inuu tago gooni asagay u taallaa ama ayada u taallaa mafahamtay saas ayaan sameeyay sheekada ku dheeriy marka taas Soomaalidii Soomaalida iska taqaana qofka inuu ku yaqaano maahine Soomaali kaliya ma dadka waxay yidhahdaan Soomaalida waa shaki badan tahay aniga waxaa waysa binaadamka inuu shaki badan yahay una shaki badnaado qof aan aqoon aan shaki aad ka qabtid oo tireen qof ilaa aad barato oo taqaani qofku wuxuu yahay meeshuu ku socdo iyo
diintiisa iyo dadkiisa waxay yihiin taqaaliid baa iyo qofku wuxuu damacsan yahay haddaadan aqoon iska daba geli karto xoolama noqon karto sooma marka markay dadka dhahaan Soomaali waa shaki badan tahay caloosha ay xanuunto waa madax xanuuna ka qaada runa ku sheega laakiin Soomaalida binaadam kale kama duwan marka alxamdulilah programmaha sameynay mid ugu weyn aan sameynay oo ka mid ah waxaa weeye in maaragtay dadka loo yaro waa ulaadino oo free ah marka waxaan sameynay legal aid legal office oo ah adiga u baahan lawyer badan aan qanaa oo wacnahay waxaan idin karnaa inaad ka qaban kartiin so tii Soomaalida kaliya hataa waxaa soo galay kuwo kale oo Afrikaan ah soo galay Mozambique iska baahan alxamdulilah mideeda kale oo aan sameynay waxaa weeye qaxootiga marka la soo dejiyo waxay soo dejiyaan meel ada meesha rabaan ay soo dejiyaan annaga marka waxaan siinay list ayaan siinay kuwa qaxootiga oo soo dejiyo oon ahna walaalayaal haddaa dadkaan keenaysiin meeshaan soo dejiyo xaafadahaan listiga ayaan sameynay xaafadahaan maaragta soo dejiyo oo meel dheer oo maaragtay hanoogeyn dadkeena soo dhaweeyay dadki baabuur mootaan masaajidkiina u dhawaadaan rabtaa shacbigiina u dhawaadaan dadkooda u dhawaadaan si maaragta wax qof loo qabo kara aniga haddii maanta aan mashquul ah waxaa laga yaabaa adiga aan mashquul ahayn oo adiga aan ahayn soo dadkii marka taasna waa sameyn waxyaalo kale oo aan qabanin waa jirta oo Soomaali maxaa la dhahaa Soomaali Virginia dadka hooyo haweenka iyo waalidka wax baan la qabanay waxyaalo kale aan qabanay marna inaan ka wadado oo xataa waxaan sameynay mid oo computer school aan sameynay oo qof walbo oo iskuulka dhiganaya ilaa 18 camal ay dhiganaysay qof walbana aan siinay brand new laptop ayaan siinay oo dhan hayso ilaa 8 bilood markii iskuulku u dhamaaday waxaan aan kiibay ma fahamtay marka waxaan rabaa hadda inaan soo dhaco arrinta ah wax hadda aan ku mashquulsanahay waxaa waaye waana la socotiin dad badan oo Soomaali ah in maanta oo immigrationada ay ugu xiran yihiin oo badanaa dadkan waxaa rabaa in maaragtay aysan keeneen in ka badan maaragtay muddo looyin ka badnay laakiin dadka hadda waxay xiran sanad iyo ka badan xiran dadka qaarkood oo ah xataa taas ayaa baqacdo mid sharciga waddankan sharciga iska soo jeeda ayaa la qofkan iska haysto marka looyaro oo kala duwan oo degan Texas iyo meelahaas America geeska joogta ayaa loo dhexeeyay marka arrinta ugu weyn oo kooda qabsatay waxay ahayd wiilal Soomaaliya ayaa waxay ku xirnaayeen Texas waxay ku xirnaayeen Maryland bal horta aan dib u dhaco sanadkan soo dhaafnay ayaa masaajidka waxaa lagu qabtay shir oo aan la shiraynay dad ku jira Congress-ka ku jiro maalintaas ayaa waxaa weydiiyey waxaa dhahay Soomaali badan ayaa xabsiyada ku xiran immigration ku xiran ama xuduudka soo gudbaan ama dad lagu qabtay waddanka gudihiisa oo xabsiga geliyay waxaa dhahay waa dowladda moogtahay listiga dadkaas ayaan u baahanahay si reer dad ay yaqaaniin aan u raadino iyo waxay u baahan yihiinna wixii oo maaragtay loo qaban karo looyarada ama dhaqaano ama weerar kale u raadin karin loo qaban karo ninka wuxuu yiri ninkan ka hadlaya waxaa la yidhahdaa Steny Hoyer ayaa la yidhahdaa Steny Hoyer waxa waaye Congress-ka Maraykanka ah oo dimuqraadiga ah naag ayaa ugu sarreyso Nancy Pelosi Nancy ayuu ku xigaasay marka waxa waaye muddo meesha joogo wax kasta wuxuu yiri ma ku siinayn yiri qofka hadaa taqaanid arag magaciisa isoo sheeg anaa markaas ku soo ogaanay meeshuu tagay waxaana qof xiran isaga ku ogaanay qofka hadaa tiraad qofka xiran magaciisa marka hore ii sheeg anaa kuu sheegay meeshuu joogo haddaan ogaay inuu xiran yahay waa ogahay meeshuu joogo sooma marka aniga si waa isfahmi weyne waxaan arrinta kaan inaan hadda ogaanaan rabnaa si dadkooda ogaadin iyo dhibaatada haysto xataa at least allah waa diiday alxaasil waxaa soo wacay nin library maaragta meesha bugaagta lagu hayo library nin jooga ayaa soo wacay wuxuu yidhi Ahmed Somali American Community Association ahaa wuxuu yidhi meesha waxaan ku haynaa wiilal xeer oo Soomaali ah
qof u imaaday intaasoo bilowda xiriir qof u imaaday ma jirto markaas waxaan dhahay aniga ma aqaan waqti systemka oo xabsiga immigration ma aqaan markaas waxaa yidhi dadka magacooda isii anaa imaanaya markaas wuxuu yidhi mayna magacooda ku siin karo waa sidii ninkii ii sheegaya ma xasuusta congressmanka ii sheegaya weynahay magacooda qofka dadka magacooda lama dhiibo laakiin america waxay tahay qofka xiran qof kastoo xiran ama qofka hataa markuu soo baxo oo xabsiga ka soo baxo uu probation ku jiro waxaad tegi kartaa internetka tegi kartaa waa ogaan kartaa qofka xiran xaafadaada hadda maaragtay ninkii oo maaragtay oo lagu xiray child molestation lagu xiray iyo kii oo probation ku jiro waa ogaan kartaa website yaa tegoo la tegi karo oo kusoo saarayso adaa wax unaha ku xanuunaa waxaa ma darisa dalla leedahay marka ogaade marka wuxuu kuma siin karo laakiin wuxuu yidhi telefoonkaaga ayaan siinayo ayaa kusoo wacay waxayna kusoo wacayaan collectical waa taqaana collectical kusoo wacaya waayo isla markaan telefoonka dhigay nusaac iyo hal saac xitaa kama soo dhigin ayaa soo wacay wiilasha waxaan sameeyey marka telefoonkooda lacag lagu shubo marka qof walba xiran bankigu leeyahay xabsiga bankigu leeyahay oo lacag lagu shubo lacagtaas waxay u isticmaalaan inay raashin ku gataan ama ku cunaan ma fahamta ama telefoonku isticmaalaan ma fahamta marka wiilasha marka waa ii sheekeynaya mogta marka xabsiga ku tagaya mogta marka xabsiga ku tago muraayada loo dhexayso musaac ayaa haystaa ayaga la fadhiistaa marka telefoonna ku hadlaynaa telefoonka isku dhigiibayaan waa lagu hadlaya markii waxay wataan xabsiga ayay wataan markaasaan wiilashaa la sheekaystay wiilasha waxay ahaayeen wiilal oo Soomaaliya ka soo tegay gobolka Soomaaliya geeska gees ayaa laga yimid oo dadka maaragtay dadka soo dhoofiyo oo lacagta ka qaato maxaa la magacay kala maxaa la yidhi ya muqallas waa kaasa muqallaska ayaa lacag ka qaatay 8,000 ilaa 10,000 ayaa la qaatay muqallaska markuu ku yiri soo baxa أنا إني وقت هذا مخلص كلعبت أيوة خاطي وحصو ودي لا يمكن هنا برازيل أساس صراعة أساس صراعة وبرازيل كنا وحصو شيء كي بيش يصير لي نقول شيء وقت إن ما أعرفتي أو معناها ويكون لنا مكان ماشي تبنو واحد وقت كل ميسي صوب حاسة بس براحي بس كلاسي راعي أمريكا وصول وين ساس أيام المشركين مثلا وحتى وحاب تجري إسلام دور وحاب تجري أو غير تجري في شكل لقاك شكل وراعي ولا وياه بس برازيل مركي إمادين أو جارد كسودين يا حلول يقول كل صوماليا يقول كاس الحالة السعودية أمريكا كتكساس السعودية قصة طوري أفهم أسيا مركي حتى ضدك قوقعين في الجيران أسيا ضدك قوقعين مركي ويلش محلول يبي كو برازيليان لونيو برازيليان كو سويدين كو كالت كولومبيا إلا إيو وحي سوي إمادين مالي لأن كوستاريكا سوي إمادين jidkaas ay ku jiraan wiilashaas intay kaaga sheekeeyaan waa yaabaysaa markaasaa waxay ku leeyihiin hadda wiilasha qaarkood mid kamida cagtiisa waxaa ku jirta dhaga waxaa ka buuxo qodxo ayaa ka buuxo qodxihii ma taagan karti qodxihii jaa waa daboolmeen daktarku wuxuu yidhi ninkaan la qalo waayo maanaya qodxa laga soo bixin karo marka anaa cagtiisa hadaa filaysa ayadana saas ku buuxshay oo xataa jidka waxay kusoo arkeen wiil Soomaaliya oo buur ka soo dhacay oo anjirta maaragtay dhinacna hilibka ka go'ay oo reerkiisii wiilkan insan oo meesha ay ku arkeen reerkiisii ayaa waxay soo direen dad soo diray oo yimid meesha waddankaas oo qaaday isbitaalka geeyey oo hadda Abu Dhabi ku noqday meesha uu joogi jiray xataa waxay soo arkeen dad maaragtay meesha markaa jidkaas markaa soo martay maaragtay dadka la waday maaragtay waxaa ku jiro dawlad kasta ku jirto Hindiyo, Pakistano, Irano, Afrikaankiyo, Haitiyo, kulli meesha ku jiraan niman jidkaas soo maraya waxay isugu imaadeen meel yiraahdo Costa Rica waddan yiraahdo Costa Rica isugu imaadeen
Sweden meeshaas ay u hayaan inay muddo ay joogaan hadda haddaad tagtid Costa Rica waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid ilaa 60 Soomaali meesha fadhiso haddaad newska iyo aad dhegaysateen ma garanaya laakiin Costa Rica ayaa hadda waxay ogaatay mid ka mid a dadkaas ma aragtay in uu al-shabaab ahaa ay isay yidaahdeen waa ku sheegi karta aniga waxaan ku gahbalaa gaalad wax binaadin wax waxay rabaan iska sameeyaan soo laakiin mid ka mid a ayaa ka mid ah al-shabaab oo hadda xeran oo Mareykanka ay raadsado yahay saas ayay sheegeen aniga ma sheegi marka dadka dhibaato soo maray dhibaato zaa'id soo maray dumarkii xataa waxaa ku jiray oo cajaa'ib leh dad reerkooda dhaqanaa oo aad u dhaqan ganacsi wax walba America ila arkay ayaa ku jiray waxaa ku jiray wiil iyo xaaskiisa iyo cunugooda oo jiray 2 sano oo Sweden deganaa ayaa ku jiray Sweden marka dadka Soomaali jooga dhalinyarada Soomaali joogta marka la yiraahdo meesha dhibaato jirta Soomaaliya waxay leeyihiin cunug yaroo 2 sano jiro ama naag uu leeyahay bartay maalin bari kirla tasii anyway xabsiga markay ka soo baxeen oo xataa dadka jidka Soomaaliya qaar waa soo xabaday qaar waa soo garaacay qaar waa xoolo laga soo dhacay qaar wabiga iyo xaaska iyo masaska ay gudbayaan ay ka cararayaan oo mayaan waxyaalo waxay soo mareen ajaa'ib مثلا قصدك waxaa waxa la soo marin geedaha la soo marin magaalada la soo mariyo marka anyway dadka markay Mexico soo baxaan ay Texas soo galaan waxaa lagu hayaa meel weyn ayaa lagu hayaa station oo xabsi weyn ayaa lagu hayaa oo wiilasha ay sheekeen waqti waxay leeyihiin qol ayaa lagu gelin idikoo 5 ama 4 qol baa lagu gelin qolka waa yahay dhulka jifaysa حلوسين بعير حلوسين ولا يسقطوا بعير ما تقولوا فيه هي تسكيلين يساسي ما تقول لك وكيف الله anyway تذكر مرة ماشي سووا هاي وحلوسوا هاي من زمان تلاقي بلوي كاس فرع القاضي صبر القاضي سؤال الدين سؤال قول عليه قول اسمع qofka marka waa in su'aalihiisa markaas uu og yahay su'aalaha ma baa jawaabtiisa marka meesha uu hayo waa labadii waxaa la geeyay station kale xabsiyo kale oo America la geeyay hadda tagtid ICE website kooda tagtid waxaa jirto detention centers ayaa jiro ayaa check-in kartaa taaban kartaa waa soo dhacay waxaa ku soo bixi listing detention centers ka soo bixi ilaa iyo control states of America كنت كريستين كيف هو يحكوا أو قارن شن يحكوا قارن طوال يحكوا مثلا قار أي إسكالة أو إسكالة أمي جارتي لكن بحيث إن محلي هذا بوليس ستيشن إسكالات أمي ديتنشن حافظ وبقى أم قول وبقى بريكو بليه وكذا الفرجين زوج جوتي وحد فارفكس كاونتي وحيد بتاع ديتنشن سنتر يخطر وذكروا حاجة إيه بتاع Arlington County Detention Center. Detention ka say dadka waa qaarkood dadka meesha ku hayo marka muddo ayaa meelahaas ugu hayo marka waxaa jiro dad ilaahay oo maalinta qalbigooda naxariis geliyo oo hooyara ayaa jiro oo meelahaas tago waa tagay meelaha fiirna yaa joogo yaa xiran yaa wamaxal maanta oo maxaa laakiin dadka saas sameynaayo waa hal iyo labo waa wayadii ayaga wayadii waa dad oo lacag donation ka qaato oo meelaha ka qaato maaragtay oo hooyara ah oo dad ku raadiyo marka dadkii soo galay aad u badan marka waa laga qaadaa Texas ama gobollo kale la geeyaa aanoo kaleeto waxaa la geeyaa Florida oo kaleeto Maryland iyo Tennessee iyo meelahaas laga tuuraa marka wiilasha inta soo galay Texas ayaa laga soo galay diyaarad buuxdo qaar baa waxa lagu soo dejiyay Soomaali kaliya qaar baa waxa lagu soo dejiyay New York qaar baa waxa lagu soo dejiyay meel kale saan حاصل انت هاس وحبسيدي كجرين لا إله إلا الله ورسولي بلو إقرار كتاب أيضا سيدا استحي أيا بكر ذلك بلشه انتو كحرم
markay nala soo xiriireen waa u tagnay sheekadooda dhegeysanay inta ay ku jireen xabsiga meesha meerna ay ku jireen ilaa waxay ahayd 4 meesha marka waa wiilal oo soomo khamiistii iyo Monday Thursday soomaa هذا ترى بحقنا حقيسي وحده كنت وضع عنه كنت حاكم جبل قصير waxaan aragnay aan ka cunno marka qaarkood waa qudaar kaliya ee cunay maxaa kale cunti bahalkaan maaragtay bacda ku jiro oo la yidhaahdo Chinese maxaa la no way maana baastada inta jawar cusub ku jiro oo maaragtay oo nafaqo aan lahayn taas midda ayay xabsiga la galaan taasay biyo oo maaragtay oo makruuh wax la kuleyna meesha biyaha xabsiga tubbaa nin walba xabsiga laba sariir taalo laba jooday ayaa isku yara xaq ku taal tubba yara ku taal tubbadii furaysaa biyo kulul ayaa dhan ku hayay biyo kulul ayaa saas ku hayaysaa ilaa baastadii maaragtay oo yaryar ee baraajina mala tii oo soo jiray taasay ku afuraan marka waxaan dhahay baastadaas lacagay joogtay see ku heshay see baastada ku heshay marka xabsiga waxaa waaye qof walba waxaa la siiyaa bashqado ya lacag la siiya may xabsiga waxba lacag siiya wax ma siiya bashqaday siiyaan qof walba waxaa la siiya usbuuci waxaa la siiya 2 bashqad ها غير كود يقدرونها أنا وقد القرآن غير كود يقدرونها مقت فلله قف رزق كيس سيان يقولوا مقت ميلش هذا كي يبغى القرآن وقت قفلوا من القرآن مش قضية أبو يعني مش قضية يكجدا يعني حبسي وحبجو هو مريكنا بجو ورا مريكنا القرآن كوي يكجدا يعني كوي إيه حبسي بحلي مش قدام قاضو $1 سي هل $1 قادنا أم $2 بحكم سوق قدنا باستي بسوق قدنا ها مركز العيال مركز فيه تاسف كل ولاية وروحنا ذكر ما ودي سي محل إنه مركز متى ماشي جبت واحد وقفك مركز وحبس كجو وإميجريشن وكجو ذكر تقانين الله وإن أقلال يستفيد عنها sababtoo ah xabsiga markuu qofkaas maxkamadda tago xabsiga ribooraya ku qor warqad ku qori uu leeyahay soo qofkaan dagaal u galay qabshuu sameeyey saaduu sameeyey albaabkii markii xirayay muusan gedi waqtigii loogu talagalay marka zaman wixii oo la yidhahda sameyn muusan sameyn jirin dhibaatay u keeni kartaa mamaan adigu wiilashii baastadii taasi ku noolaayeen كاس مشغلية يقول لي مشغلية كده ما فهمت هو حاجات الوقت ياخذ الواحد مشغلية يقول لي كده العيال مش من راشين واحد أحوال في عالم أو باص بس بدل ما كان كده الحمد لله إن lawyer free برضه قبل كان كهذا ودبعت أي جبته ويلش ويل كمل تبقى قراب الله أيها وحي أحمد تلفونك الواقعي واحد وقد أنا كنت محاول أنا قال مين نقطة أكيد immigration كا أنا قال شقين برا شقين وحاجة البوك اللي يراه إنه welcome guide أيجو ومركب قفل بوضع كان إيمانه أو أسيان أو قط قفل بوضع سكول مركب أنا قال نوعي معناه تواصل الكهر أي رهدين موجان الصومالي كوريين وقف العكس يعني أنت سوكون دور صوصية